munaasabad si heersara loo soo agaasimay oo maanta ka dhacday gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxay ahayd mid lagu soo gunaanadayo horyaalka dalka Soomaaliya iyo koobka General Daawud oo sanadkiiba mar lagu dhigo Muqdisho waxa halkaas lagu gudoonsiiyay naadiyadii ku guuleystay horyaalka dalka Soomaaliya iyo sidoo kale koobka General Daawud koobkii ay u lahaayeen xaq waxaana koobka dhagaha waaweyn ee laga bixiyay horyaalka dalka ku guuleystay kooxda kubadda cagta Elman oo horyaalka dalka Soomaaliya dhibco fara badan ku qaaday sidoo kale kooxda kubadda cagta Banaadir Sport Club ayaa iyaduna shalay galab waxay ku guuleysatay koobka General Daawud oo sanadkiiba mar la qabtay iyaduna ka qaaday kooxda Badbaado waxaana halkaas iyadana lagu gudoonsiiyay koobkii laga bixinayay General Daawud waxa munaasabada ka soo qayb galay dadyo aad u fara badan marti sharaf isugu jirta madax ka socota xiriirada dalka iyo sidoo kale wasaaradii hore ee dhalinyarada iyo isboortiga iyo xukuumadii ku meel gaarka Soomaaliya waxa sidoo kale goobjoog halkaas ka ahaa qaar ka tirsan garsoorayaashii hore ee dalka iyo ciyaartooydii hore uga tirsan naadiyadii kubadda cagta iyo basketka ee dalkeena Soomaaliya waxa munaasabadan si daba taalay in sagootin heersara iyaduna loo sameeyay ciyaartooyda xulka qaranka dalka Soomaaliya oo aan bixi doona maalinta berita magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda si ay uga qayb galaan koobka bariga ee bartamaha Afrika waxa ugu horeyntii halkaas ka hadlay xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta dalka Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab oo warbixin ka bixiyay heerka uu ku soo gabagaboomay horyaalka dalka iyo koobka General Daawud iyo sidoo kale sagootinta ciyaartooyda dalka Soomaaliya horyaalkii iyo warbixinta laga diyaarshay General Daawudkii iyo warbixinta laga diyaariyay waa la akhriyay waxa kaloo si la daawaday si kooban loo daawaday documentary oo filim ah oo aan ka sameynay intii la soo qabtay waa dareemi karaa inaysan ahayn yani si sax ah inaan macnaha oo looga qabdeynin waa dareemi karnaa laakiin xiriirka kubadda cagta waxaa niyadka macnaha waxay qabteen intay kari karaan inay soo bandhigaan haddii qurxoon tahay iyo haddii qabyo tahay intaba niyaddan inaan soo bandhignay ahayd ayadoo filan in la daawadaan jeclahay ayadoo qoraan la akhriyay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta dalka Soomaaliya Ali Saciid Guuleed Rooble iyo sidoo kale gudoomiyaha xiriirka Goos ee Olimbikada Duraan Axmed Faarax ayaa iyaguna halkaas waxay ka soo jeediyeen hadallo marka wuxuu yiri ka waran maanta laba kooxood J iyo Elman ba ciyaar samxay la tahay sida uga faaloodaan runtii waxaan aad ugu dhiirigelin lahayn inay badiyaan faalooyinka taas oo kala inta badan waxa laga aad uga faaloodaan waxa la yiraahdaa championship-yada wadamada kale oo la liiga iyo premiership iyo dhalinyaradu ay kuwaas ay ku isisiyaan oo kuwaas ay yiraahdaan anaga maanta kooxda Chelsea hadaan nahay waxaan kooxda Manchester wax ka badanaynaa iyo hadaan nahay Barcelona inay kooxda Soomaaliyeed oo maxaa la yiraahdaa ay ku isdiin karaan maxaa la yiraahdaa si maxaa la yiraahdaa ugu dhiirigeliyo kuwaas inay taageeraan inta fadhiday inay ka badnaato waa jecleen laakiin intaanba waa aad iyo aad baan u faraxsanahay mar haddii ay tahay isku dhex jirkeena horta war wixii la sheegi lahaay oo dhan waa la sheegay ammaan hadday noqoto iyo waxqabad hadday noqoto kulli waa la sheegay waxaan ku darsanayaa hal shay gudoomiyaasha kooxaha stakeholderska oo muddo dheer soo waday tartankan iyo macallimiintii iyo kabtayaasha horta waa ugu mahadcelinayaa ma soo istaagay ma ahane khudbadii ku saabsaneed waa la jeediyey legendiga joogo iyo martida maanta sharafta noo joogto khudbada waxaa iska lahaa iyagaa lahaayeen inay qaataan badi sida badan maadaama annaga wixii aan qabanay ay jiraan dadkii kale oo naga maqnaa inay qaataan aan rabnay marka waxaan ka mahadcelinaynaa guddiga nabadgelyada sida taliya buulax iyo Axmed Yare wixii intaas ka dambeeyay waxa halkaas lagu gudoonsiiyay biladii ay lahaayeen ciyaaryahanadii ka soo qayb galay horyaalka dalka Soomaaliya iyo koobka General Daawud iyo koobkii loogu talagalay in la gudoonsiiyo naadiyadii ku guuleystay koobabkaasi xidigii ugu fiicnaa horyaalka dalka Soomaaliya ayaa waxa loo aqoonsaday inuu yahay ciyaaryahan Maxamuud Mayman oo ka tirsan kooxda kubadda cagta LLB Jayo kana mid ah ciyaartooyda qaranka Soomaaliya oo aan bixi doonta berito waxa sidoo kale halkaas lagu gudoonsiiyay ciyaartooydii ugu fiicnaa dhanka garsoorka iyo weerar biladii ay ku lahaayeen xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Nasrakiin Xaashi Noore Royal TV Muqdisho